Bismillahirrahmanirrahim waxaan daawadayaal halkan waa tubta wararka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal idinkugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo garan ogyahay Kulane Jiis waxa ay noqdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug warar ayaan daawadayaal idinkaga labada mas'uulba waxa ay ku soo baxeen doorasho gacan taag ah oo ma jirin wax codeyn ah doorashada noocan ah ee dalka ka socota ee uu farmaajo keensaday ayaa daawadayaal isla falaqeyn doona waxaan sidoo kale isdul taagi doonaa beesha Hawiye oo fariin xasaasi ah u dirtay beesha Isaaq iyo Somaliland haddaba fariintaasi maxay ku qotontaa waan idin soo gudbi doonaa booliiska oo shaaciyay sababta Muuday loogu celiyay Aadan Cadde sidoo kale daawadayaal waan isla falaqeyn doonaa warkan ka soo baxay booliiska ayaana halkan idinkugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay qarax ay shacab ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle sidoo kale daawadayaal waan idin soo gudbi doonaa qodobadaas ayaana isla falaqeyn doonaa hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saariyo channelka furan ee gambalaalkaasi durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii durmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Cabdullaahi Aadan Kulane ayaa loo doortay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa goordhow loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah xubnaha musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa guul taariikhi ah ka soo hoyay doorashada inkastoo uusan gelin tartan adag sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee Galmudug Naciime Xuseen Cali oo la tartami lahayd Cabdiraxmaan ayaa ka tanaasushay tartanka kadibna waxaa loo qaaday cod gacan taag ah isaga oo helay codad gaaraya 86 cod oo dhammaan ergada soo xaadirtay guusha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhabarjab ku ah Villa Soomaaliya oo isku dayday in ay kursigan ka reebto maadaama uu ka mid yahay xubnaha ay sida aadka isugu hayaan farmaajo doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa dardar ku socota waxaana uu qorshe yahay in la soo gabagabeeyo ka hor 25 bishan Febraayo ee sanadkan cusub aynu ku guda jirno 2022 Cabdullaahi Kulane oo isagu ka mid ah saraakiisha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa sidoo kale xildhibaan loogu doortay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka Galmudug kuraasta doorashadooda la qabtay ayaa waxaa ka mid ah kursiga hoob 40 waxaana ku guuleystay Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo yaqaan Kulane Jiis kadib markii uu u tanaasulay musharax Xasan Cabdi Jaamac oo ahaa malxiis maadaama isaga loo xiray kursiga Kulane Jiis oo loo qaaday cod gacan taag ah ayaa helay 101 cod sida uu shaaciyay guddiga siid ee dowlad goboleedka Galmudug guusha Cabdullaahi Aadan Kulane oo ku xiran farmaajo iyo Faad Yaasiin ayaa guul weyn u ah kooxda Villa Soomaaliya oo dadaal xoogan gelisay kursigan oo markii horeba ahaa qoonda haween balse hadda loo bedelay rag si loogu soo saaro Kulane Jiis oo ku soo baxay sidoo kale kursiga hoob 7 waxaa ku soo baxay Faarax Cabdi Diini oo ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Diini ayaa ku soo baxay codad dhan 76 cod kadib markii uu tanaasulay musharax Maxamed Cabdi Cali oo kula tartami lahaa kursigaasi doorashada labadan kursi waxaa ka sii horeysay kursiga hoob 138 waxaana loo doortay siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kana mid ah mucaaradka si kastaba ha ahaatee tallaabada ay Galmudug qaaday ee ku aadan doorashada golaha shacabka ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada caasimadda Muqdisho dhanka kalena daawadayaal hadaan eegno beesha Hawiye ayaa waxay fariin xasaasi ah u dirtay beesha Isaaq iyo Somaliland waxgaradka beelaha Hawiye ayaa maamulka Somaliland ku eedeeyay in uu ku gacay arin aan waafaqsanayn dhaqanka beelaha Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka kadib markii uu maamulku afduubay heshiis ay gaareen laba beelood
oo kasoo wada jeeda ama kasoo kala jeeda habargidir iyo sidoo kaleba isaaq. odayaal uu hogaaminayo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb iyagoo fariin u diray maamulka Somaliland iyo beesha isaaq. Nabadoon Xaad ayaa sheegay in nin kasoo jeeda beesha Saruur ee habargidir uu dil toogasho ugu xiran yahay magaalada Hargeysa, balse markii ay labada beelood ka wada xaajoodeen magta nin hore loo dilay oo loo haysto ninkaas ay Somaliland soo faragelisay kiiska. wuxuu sheegay in cadeemo buuxda aan loo hayn dilka loo haysto ninka Saruur ee Hargeysa ku xiran, balse cidii uu ka dhashay ee aqbashay in ay bixiso diyada ninkii dhintay oo sida uu sheegay ka badan intii dhaqanka Soomaalida lagu kala qaadan jiray. hase yeeshee iyadoo wax kasta ay gabagaba yihiin ayuu Nabadoon Xaad sheegay in arrinta uu soo fargeliyay maamulka Somaliland oo hadda ku adkeysanaya in la toogto ninkaas. ninka la dilay ee Somaliland ay doonayso in loo toogto ninkaas kasoo jeeda beesha Saruur ee habargidir, halka ninka dhintay uu ka dhashay beesha Ciidagale ee Garxajis Isaaq. jufada uu ninkaasi ka dhintay ee isaaq waxay adkeeyeen wax kasta oo dhaqan lagu xalin jiray, haddana qolada uu ninka xiran ka dhashay waxay aqbaleen wax kasta oo la hordhigay si ninkaasi uu xornimo u helo, balse waxaa arrinta soo faragelisay Somaliland oo tiri ninkaas waa la toogana, taasna nama qabato ayuu yidhi Nabadoon Xaad. waxa uu sheegay in muddo dheer laga wada hadlayo gorgortanka diyada ninkii la dilay, balse aan marnaba la soo hadal qaadin in la dilo ninkaas, balse maamulka Somaliland uu ugu dambeyntii afduubay heshiisyadii socday isla markaana uu ku adkeystay in la tooganayo ninkaas. Nabadoon Xaad iyo odayaasha kale ee Hawiye ayaa maamulka Somaliland iyo beesha uu ka dhashay ninka dhintay waxay ka codsadeen in la dhooro dhaqanka Soomaalida, isagoo cadeeyay in xal kasta oo aan dil ahayn ay diyaar u yihiin. markaana daawadayaal booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay shaaciyeen sababta gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankii 10aad loogu celiyay garoonka Aadan Cadde magaalada caasimadda Muqdisho. afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay isoo istaagii shalay lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo loo diiday in uu ka baxo garoonka Aadan Cadde xilli uu ku sii jeeday magaalo xebeedka Baraabe. Cabdifataax Aadan ayaa sababta ku sheegay in gudoomiyuhu watay ciidamo fara badan iyo hub, taasina ay keentay in laga hor istaago in uu ciidamadaasi kala baxo garoonka. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in isaga aan si gaar ah loo bartilmaameedsan, balse ujeedka uu ahaa arrimo la xiriira amniga doorashada. afhayeenka ayaa xusay in amniga Baraabe uu sugan yahay, isla markaana musharaxiinta tegaya kaliya loo ogol yahay ilaalo gaaraysa 4 ama 5 nin sida uu hadalka u dhigay. ma jirto sabab keeni karta in ciidan badan loo qaato magaaladaas. garoonka Aadan Cadde waxaa lagu baraaruqay ciidan hub badan wata oo rabo in ay diyaarad raacaan, lana ogaaday in ay Baraabe tegayaan, balse Muude waxaa lagu wargeliyay in kaliya loo ogol yahay 5 askari oo waardiye ah ayuu yiri Cabdifataax. dhammaan musharaxiinta ayuu ugu baaqay in ay ilaaliyaan xasiloonida amniga maadaama lagu jiro doorasho, iyaguna ay mas'uul ka yihiin nabadgelyada guud ee doorashooyinka. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay garoonka Aadan Cadde lagu celiyo gudoomiye Muude oo ku sii socday magaalada Baraabe oo deegaan doorashadiisu tahay si uu mar kale ugu tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo ay sumadiisu tahay hoob 145. si kastaba ha ahaatee Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo dhacdada kadib shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa eedeyn u jeediyay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, wuxuuna sheegay in la boobayo kursigiisa isaga oo shaaciyay in loo rabo qof gaar ah. ugu dambeynna daawadayaal haddaan eegno wararkii ugu dambeeyay qarax ay shacab ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Jowhar. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle, kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu haleelay mooto bajaaj ay la socdeen dad shacab ah xilli uu marayay deegaanka Xaan Shooley ee duleedka Jowhar. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo saarnaa mootada la qarxiyay, sida ay inoo sheegeen ila dadka deegaanka oo lagu kalsoon yahay. ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, kuwaas oo meesha ka soo qaaday
meydadka iyo dhaawaca dadka ku waxyeeloobay miinadaas. ma jiro weli wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha laamaha ammaanka Hirshabelle ka bixiyeen dhacdadaasi, balse waxaa haatan socda baaritaano dheeri ah. qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan daro oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe oo ay haatan ka socoto doorashada kuraas ka mid ah xubnaha deegaan doorashadoodu ay tahay gudaha magaaladaas. kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro gaadma ka fulisay halkaasi, waxaana ay ku beegsataa ciidamada iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle, inkastoo ilaa iyo hadda aysan kooxdu ka hadlin weerarkan qaraxa ee maanta loo dhigay dadka shacabka. Jowhar ayaa waxaa haatan laga dareemayaa mashquul xoogan oo ku aadan doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo si rasmi ah ugu bilaabatay gudaha magaaladaas. gudaha daawadayaal waa inaga intaa barnaamijka channelka tubta wararka aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalkan laakiin oo subscribe noo sar channelka Furagan Balka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo galino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada loo gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.